okay marka maxaan sidaas u leeyahay maxaan madaxweynaha caafimaadkiisa su-aal u geliyay maxay tahay sababta aan uga welwelsanahay caafimaadka madaxweynaha Soomaaliya ma mucaarad ayaa noqday maya aniga weli waxaan ahay taageerayaasha madaxweynaha kuwa ugu cadcad aad ayaan u taageeray xasan sheekh oo caafimaad qabana ma aaminsani madaxweyne dhaaman inuu Soomaali soo maray hase ahaatee with the help of hindsight markaan dib u fiiriyo wixii hore u dhacay madaxweyne xasan sheekh xanuunkiisu wuxuu soo bilowday immediately after his election madaxweynaha markii la doortay dagaalka shabaab bilowgii dagaalka shabaabka madaxweynuhu oo ka imaahay waxaadna ka ogaan kartaa madaxweyne xasan sheekh xilligii lagu guda jiray dagaalka shabaabka wuxuu tegay gobolada dhexe iyo qaybo ka tirsan hirshabelle madaxweynuhu wuxuu si cad ugu bareeray khatar dhul al-shabaab 15 sano xukumayeen oo dadku bahala noqdeen ayuu baabuur ku maray riskigaas aadka u halista badan madaxweynuhu ma dareemeynin madaxweynuhu wuxuu hor istaagayay dad uusan garanayn oo qabaa'ila intaasoo sano shabaabku dul heesteen oo hubaysan ayuu intuu hor istaagu la hadlay inkastoo madaxweynuhu ilaalo uu watay haddana riskigu wuxuu ahaa too high madaxweynuhu ma dareemayn sidoo kale madaxweynuhu markuu soo laabtay waad ogtihiin asagoo timuhu jangal yihiin ayuu soo laabtay dad badan iyo anigoo waxaan u haysanay inuu ku raadinayay wax la yiraahdo political empathy inuu nagu qalbi jilicsanaya u haysanay laakiin hadda markaan dib u fiiriyo madaxweynuhu wuxuu sameynayay waxay ahaayeen self neglect iskama warqabin caafimaadkiisa ayaa si xun damage u soo gaaray xagga maskaxda madaxweynuhu iskama warqabin asagoo qool sita dhaawaca timuhu baxsan yihiin ayuu adduunyada wareegayay iskama warqabin madaxweynuhu runtii waqtigaas ay ahayd Soomaalidu inay baraarugto hase ahaatee maanan baraarugin more recently madaxweynaha go'aanadiisa markaa dib u fiiriso Ethiopia ayuu ku tilmaamay cadawga koobaad ee Soomaaliya al-shabaab uu ka hormariyay isla waqtigaasna kumanaan kun oo ciidamo Ethiopian ayaa ku sugnaa gudaha Soomaaliya oo ilaalinayay meelo muhiim u ah Soomaaliya gobolka Soomaaliya ka mid ah ilaalinay suuragal maaha the head of state inuu dal ciidamadiisu gudaha dalkiisa ku jiraan oo uusan lahayn awood xataa isaga saari karo inuu yiraahdo waa cadawga koobaad ee halal dagaalamo ma ahayn wax caqli diblomaasiyadna ma ahayn mid kaloo logic ah oo la aqbali karana ma ahayn madaxweynuhu iska hadlayay wuxuusan fahamsanayn uusan ka warqabin ayuu iska sheegay arrinta labaad waxay tahay islaantii masaakiinta ahayd ee caabanaysay guryaha laga dumiyey sida ugu jawaab waxaa la rabaa hogaamiyaha markasta sax maaha ma badna hogaamiye lala xisaabtamay sida hadda madaxweynaha Soomaaliya oo kale dowlad daciifa madax u ah in wax kasta sharci inuu ilaaliyo yani wax la filayo maaha laakiin laba shay ayaa muhiim ah oo the head of state laga rabaa madaxda ugu sareysa waxa ay sameynayaan inay yihiin logic ama legal labadaas wixii ka baxsan su'aal la geli karaa qofka meerqabkiisa madaxweynaha Soomaaliya maanta wuxuu sameynayo is neither legal no logic wax aqli galana ma aha wax sharcina ma aha inuu islaamaha masaakiinta ku kobaha la dulmaro sidoo doona u hadlo xanaaqo qoyskiisa noloshiisa private-ka ka sheekeeyo waxaasoo dhan caqlina maaha wax sharcina maaha wax Soomaali u baahan tahay danteedu ku jirtana maaha taas waxaa dheer go'aankii ciidamada Soomaalida lagu geeyay meesha la yiraahdo Jubbaland Ras Kamboni in ciidan diyaarad lagu qaado diyaarad si dalxiis meel sida u fog oo aan gargaar lala gaari karin
oo sahaydu aada uga fog tahay iyadoon la samayn risk assessment dhul shabaab ku hareereysan yahay waay axmed madoobe maalinba maalinta ka dambeysa wuu soo hanjabay in askar lagu qaado diyaarad ee lagu daadiyo meel saas halisteedu u badan tahay without risk assessment logic maaha legalna maaha madaxweynuhu maskaxda ka dambeysay oo go-aankaas ku aqbalay iyo cidda kula talisay iyo cidda ogolaatay intuba waa wadadaan meer qabin maalinba maalinta ka dambeysa xaaladdu way kasii daraysaa hadda dalkii uu lahaa waa cadowga koowaad ayuu heshiis la soo galay heshiiskaas noocuu yahay yaa garanaya madaxweynaheenu ninka dalka aan ku aaminayn ka sugayno nin meer qaba maaha maxay noqon karaan heshiisyadan suuragal ma tahay in turkiga iyo etoobiya iyo carabahan meel kastuu tagaba oo qeyb khayraad muhiima oo dalka soomaaliya uu leeyahay uu saxiixayo asoon ka warqabay maxaa dhacaya berrito madaxweynuhu hadduu noqdo qof isbitaal galay annagana saxiixiis dalkii noogala qaato qaarna ay noqdaan muxuu ahaa ganacsatada ama maafiyada localka loo saxiixo qaarna dalalka shisheeye loo saxiixo soo dhibaato maaha meel laga gaari karan xaaladu gaari kartaa soomaalida waxaa looga baahan yahay madaxweynaha farta lagu taagayo hala iska daayo victim waaye madaxweynuhu waa dhibane qofku markuu dhibanan yahay gargaar uu baahan yahay eeday waxba tiri mayso soomaalida waxaa laga rabaa inay istaagto in shirweyne la isugu yeero dadka mas-uuliyiinta ah soomaalida mucaarad iyo muxaafad isu yimaadeen dalkan ay tashadaan xasan sheekh maxamuud lama aamini kara hadda kabacdi mas-uuliyad ma qaadin karo aniga san aaminsanaa kuley asalaamu calaykum